بما أدو يدا لقوة مكتوبة حد ما كل بيها يتكم ولا ما يتي بما أدو يدا لقوة مكتوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نؤله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا مع صدحي الشيخ إبراهيم آدم حاشي يعلم القرآن كإلهي رواف رمضان ومسلم علي شيخنا أجري حسنات كسيو برنامج شيء أي مدرب دونا قابو لعدونا أو حاجة أنا هي رأينا تقابو أنت المدرب برنامج كله كبر على دونا فروتان أو سيدا على هاي ونوفر دونا واسو وحاكم في دونا كلمة أقوياء عدكوضا كوحد دونا وحاكم في دونا كلمة هواك وأنا الشركة لو في دونا دوني كم عوض الشركة الزواج اسمه كسر شيئا هذا دونا وحنا قدامي كسر كبير دونا أفيان الشركة وأسكنا كسر دوين دونا هذه الهيئة عم بلادو وجاز أحمد الشيخ حسين سيقولنا وفر الشركة فصحنا عن وقعنا وجاز ونوفر الشركة وأنا ما أصدق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaad moodaa marka qur-aanka lagu furo shirka inuu furan yahay waayo culummada hadda shirka noo furay inta badan qur-aanka noogu furta marxaladda laga hadlayo ayay aayadaha qur-aanka ku beegaan dadkuna wada islaam qur-aanka way yaqaanaan waxaan meesha isku nimid oo dhan iyo khayrku wuxuu ku jiro waxaa noo sheegay shiiku aayadda qur-aanka ah oo akhriyay marka dhaqanba iska noqotay kolley in la dhaho qof kale ha furo laakiin shirkii mar haddii kalaamkii ilaahay lagu furay waa furan yahay aniguna hadal badan ma sii galayo shirki waa noo furan yahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa waxaa ka soo baxaya inay noo noqdaan wax faa'iido leh oo masaalixdeena kooba oo dadka isu soo dhaweeya oo tashwiishka inaga saara oo barakooba. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baad u mahadsantahay Axmed Sheekh Xuseen oo golaha odayaasha ama gurtida ugaaskii magaciisa ku hadlay aad baad u mahadsantahay anoo weli bartamaha uga jira barnaamijkeennii waxaan haddana rabaa inaan u yeero كلمة aqoonyahanka ku hadli doona waa Dr. Xasan Sheekh Ali oo ku magacaaba Xasan Cadde fadlan mikrofoonka waa ka yaala Xasan Cadde kalimadaada waa loo baahan yahay waa mahadsan Gracias.
كل وحدوا بالأربع بالصومال وهاي ما في معنى استحوا على استهدوا مات وكبر وحمس على أيام مات عن أمها اليوم ضدك كسر شقيقي محمد ولا شركان أبا مري ما الفكري نشتي فيها صورة جيدة إنه يعني وحصول صعود تبدأ توصل ماتا وجوية isla markaasna gabagabadiisa ay joogaan maxaan ku idhahdaa soomaalida walow marka hore uu deegaanada soomaalida ka mid ah ama sida loo yaqaan beel ka mid ah uu initiative u ahaa haddana hadda ay joogto soomaaliya runtii waxaan jeclahay waliyaasina marka hore u mahadceliyo kuna bogaadiyo runtii shaqo waxaa qabateen loo baahnaa waxaan rajeynaynaa inay maaragtay ka faa'iidaystaan maaragtay مستقبل كلمة فائدة الصومالية وتركي قارها وقتها كلمة يطور فائدستان انت كذب عفوا يا ماما حاسة قلت لنا بيشل إلى الموضوع على المي بيشل المي وحنا بقى واحد من الخصوصية على كاس الصومالية وهذا الكلام مع الكسران لكن قولي الصومالي أخيان وعن معناها فرمضا كويسة الصومالي بدل سنة يتمكن ما يكون سجال بقول يستطيع هي أفضل بس يستطيع هي طبعاً من دليرة الصومالية وحوك ستاها وبضنا وحل أبد واستعمال عم بدك كتير والصومالي كلام ما يسمى توغي ayaa isu yimid oo fikiray in ay Soomaaliya kulligeed gumaysan ka doorbidaan ma jirin caalamka xilliga ayada 1943 May 13 dhalinyarada ay markay isu imaanayeen caalamka ma jirin dadka Soomaalida kuma aanay bilooyin laakiin 13 Soomaaliya marka taariikhdooda laga sheegay calanka isaga bisha May waxay ka mid tahay haddana maalmihii uu dhacay ay ka mid tahay anaa wada fikray calan Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo xor ah oo sharaf leh oo macno leh oo muxtaram ah oo adduunka ka mid ah inay jirto 15 May waa fikradeedu ah isla markaasna 15 May baa calanka Soomaaliya dhacay nala socotaan kama أنا أقول لك الدولة الصومالية جدا بيستي بيش المي شمتي يكون سجار محمد السجاش اللي يلوني هي على الصومالية التاجر الدولة ده هو الصومالي واحد بدري على مكة أو عند الوطن مثلا شبهني على بدر هذه دولة مكة كل تجارب هي غير بعرف السن يعني بيش المي سجاش اللي يلوني على كتير مميز وعايز ما أنت مركا إلى أن حتى حسوس ما كنت أنا معي كل يوم معي الوضع أنا عندي حسوس أنا على فكرة ما تمر وكذا قبل هاي أنا وفكرين هو بدأ كمتن كذبنا يعني سيطرة الإسلام أنا يعني بس بدون وهذا يطول لي اليوم على الرجال بس بدون أنا قاعد أقول إحنا أيوه رجال إحنا عارف بما أدوية ذلك ودمتوبة حتى ما كل بيها يتكم ولا ما يسير